السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qaybtii hore waxaynu ku soo barannay sanadii 617 hijriga ahayd sanad aad u madow oo muslimiinta soo martay dagaalo badanna dhiceen welina aanu sanadkii dhammaan. waxa kaloo aynu si gaar ah u maraynay Khawaarsimo oo wabigii qaaday qofna aanu ka badbaadin. markaynu leenahay Khawaarsimo uma jirna dawladdii weyneed, ujeedkeenu waa magaaladii sida gaarka loo oran jiray Khawaarsimo ee dawladda oo dhan loogu magac daray. qaybteena maanta waxay nooga bilaabmaysaa Tataarkii oo u jeestay koonfurta iyo bartamaha Afghanistan. burburintii Khuraasaan waxay Tataarku gacanta ku dhigeen dhammaan gobollada waqooyi iyo bartamaha dawladdii Khawaarsimo waxay socodkii ku gaadheen galbeedka ilaa dhammaadka dawladdan, laakiin dhinaca koonfureed ee dawladdan umay soo dhowaan. jihada koonfureed ee dawladda Khawaarsimo waxaa gacanta ku hayay Jalaaludiin bin Maxamed Khawaarsimo Shaah. waxa dhalay madaxweynihii ka cararay Tataarka ee ku dhintay jasiiradda yar ee Qaswiin. Jalaaludiin imika wuxuu gacanta ku hayaa Pakistan iyo Afghanistan, waa qofka qura ka haray dawladdii iyo dadkii ay Tataarku rogeen. wuxuu magaalo madax ka dhigtay Qasna, iminkana waa dawladda Afghanistan. waxay koonfur ka xigtaa ilaa 150 kiiloomitir magaalada caasimadda ah ee Kaabuul. waa magaalo aad u dhufaysay badan kuna taalla buuraleyda lagu magacaabo Baabur Maysuus ee Afghanistan. markii uu Genghis Khan dilay Maxamed Khawaarsimo dawladdiisina riday, wuxuu ku fakaray sidii uu ugu doori lahaa koonfurta Afghanistan si uu dagaal ugula galo Jalaaludiin Maxamed. waxa uu aaday dhinaca Qasna isagoo wata ciidan aad u badan. dabcan Jalaaludiin kama warlaa Tataarku waxay yihiin, oo waa raggii sida aabihii waryanayeen gacanta ku dhigi gaadhay. waxa kale uu ogay in isagana lagu soo maqan yahay, sidaa darteed wuxuu bilaabay diyaargarow si uu Tataarka dagaal ula galo. wuxuu diyaariyey ciidan aad u ballaadhan. waxa kaloo uu yimi boqor ka mid ah boqorradii Turkida oo magaciisa la dhaho Sayfudiin Baqraar. waxa uu ahaa dagaalyahan dagaalada ku caanbaxay. waxa kaloo uu ahaa khabiir xagga ra'yiga iyo dhagaraha dagaalka. wuxuu wataa 30,000 oo ciidan muslimiin ah. kadib waxaa ciidankiisa ku soo darsamay 60,000 oo ah kuwii ka soo baxsaday magaalooyinkii la burburiyey iyo qaar ay keentay ciid iyo xamaasad ay u qabaan la dagaalanka Tataarka. waxaa kaloo ku soo darsamay Malik Khan oo ah ninkii xukumi jiray Haraat ee caraaray kadib markii uu Genghis Khan ka adkaaday. sidaa darteed waxa uu noqday ciidankii Jalaaludiin ciidan faradhaafa. kadib waxa uu Jalaaludiin ciidankiisu la soo baxay magaalada lagu magacaabo Balaq oo deris la ah Qasna. waana magaalo buureed aanay farduhu ku dagaalami karin, dhinac kastana buuruhu way kaga wareegsan yihiin. halkaa wada dhufayska ah bay ku sugeen Tataarkii. waxay sugaanba ciidankii Tataarkuna way soo dhigteen. waxaa dagaal baani dhex maray isbahaysigii u watay Jalaaludiin iyo huwantii Tataarka. dagaalkii ugu adkaa ee abi soo mara Tataarka meeshaasu ka dhacay. waxay dagaalameen muslimiintu dagaal nafurid ah. waxaa ciidamadaas ku raacday xamaasad iyo dhulka ay ku dagaalamayeen oo ahaa dhul ku wanaagsan dagaal ahaan. tirada ciidamada muslimiinta oo ahaa markii ay ugu badnaayeen iyo geesnimada ciidamada Turkiga ee uu watay dagaalyahanka Sayfudiin Baqraar. hogaaminta goobta dagaalka ee haystaan intaas oo la isku geeyey ayaa muslimiinta raad ku yeelatay oo sugtay safafkoodii una babac dhigeen huwantii Tataarka. 3 maalmood ayuu socday dagaal aan waxba la iskula harin. ilaahay ayaa soo dejiyay naxariistiisii. jabkii ugu horreeyayna waxa la gaarsiiyey Tataarka ee dhul muslim ah lagu jabiyey. dhimashadii ayaa ku badatay Tataarka. intii hadhayna waxay u carareen taliskoodii oo ahaa Daaliqaan. taliskana waa ku fadhiyey Genghis Khan. waxa rajadoodii kor u kacday muslimiintii. waxaa qalbigoodii ka baxday oo dhahdii caan baxday ee ahayd Tataarka lama jabiyo. goobtan waxay midaysay ciidankii Jalaaludiin, kuwii aabihii, kuwii Turkida iyo kuwii Malik Khan. muslimiintii oo doortay goob istiraatiiji ah oo dagaal ku fiican. sababahaas ayaa keenay guushaas. ciidankiisa ayuu isku habaystay Jalaaludiin. warqadna wuxuu u diray Genghis Khan uu dagaal cusub ugu yeedhayo. Genghis Khanna wuxuu fadhiyay xaruntii Daaliqaan. waxa uu dareemay Genghis Khan warwarkii ugu horreeyay. waxa uu soo diyaariyey ciidan ka awood badan kuwii hore. waxa uu Genghis Khan ciidankii madax uga dhigay mid ka mid ah wiilashiisii. ciidankii muslimiintuna way diyaar garoobeen, waxayna labadii ciidan ku kulmeen Kaabuul, caasimadda Afghanistan. magaalada Kaabuul waa magaalo dhufaysay adag, dhinac kastana buura kaga wareegsan yihiin. waqooyiga waxaa ka xiga buuraha Hindukoosh, galbeedkana waxaa ka xiga buuraha Baabur Maysuus, koonfur iyo barina waa buuraha Sulaymaan. goobtan Kaabuul baa fooda la istaray. dagaal aan waxba la iskula harinna waa ka dhacay. iskuma dhowa xagga adkaanta kii ka dhacay Qasna. muslimiintu way samareen guul labaad oo qaaliyana way xaqiijiyeen. waxayna soo furteen kumanaan muslimiin ah oo maxaabiis ahaan loo haystay kuna jiray gacanta Tataarka. dareenkii muslimiinta kacay Tataarkina aad baa loo laayay. waxay muslimiinta kala hadheen qaniimo aad u badan oo aan la qiyaasi karin. intaa kadib maxaa dhacay? maalkii ay heleen muslimiinta halkii uu noqon lahaa nimco iyo badhaadho u soo hoyatay, waxay ku noqotay dhiig iyo dhunkaal, hoog iyo halaag iyo musiibo u soo hoyatay. sidaynu hore u soo sheegnay, muslimiinta qalbigoodu wuu bukay, waxaana degtay adduunyo in yar oo ilaahay u naxariistay mooye. waxaa dagaalada muslimiinta dhex mara intooda badan sababi jirta adduunyo, dagaalo dana gaara laga leeyahay iyo qabyaalad. danta laga leeyahay guusha iyo in ciidanka la howlgeliyaa waa adbariyo kursiga kusii fadhideeda iyo xukun jacayl. muslimiintiina waxaa ku dhacday fitno noocaasa. waxay isku qabsadeen sidii xoolaha loo qaybsan lahaa. waxaa istaagay Sayfudiin Baqraar, hogaamiyaha ciidanka Turkida. sidoo kale waxaa istaagay Malik Khan, ninkii haystay Haraat.
mid kasta dhankiisu istaagay isagoo dalbanaya in la siiyo xoolihii meesha laga helay. khilaafkiibaa cirkaas ku shareeray, hadalkiibaa taagtaagmay, kadibna seefta hadashay. seeftii baa isla galay iyadoo laisku leynaya qaniimadii gaalada lagala hadhay, iyadoo ciidankii tataarkuna magaalo kasta oo muslima joogaan. muslimiintii meesha ku dhimatay waxaa ka mid ahaa sayfudiin baqraar walaalkii. sayfudiin aad ayuu u xanaaqay, wuxuuna go-aan ku gaadhay inuu dagaalkaas kaga baxo iyo inuu meesha kala baxo ciidankiisan 30,000 ah. weliba ciidan tababarkoodu sarreeyo ayay ahaayeen. jalaaludiin ayaa isidha arrintan xalli oo ka codsaday inuu kusoo noqdo safka muslimiinta maadaama oo aan hal askari maanta laga maarmayn. waxaa kaloo uu sheegay inay niyad jabayaan ciidanka inta hadha hadday ciidankiisu safka hore ka baxaan. waa la marsiin waayey, wuxuuna go'aansay inuu ciidankiisa meesha kala baxo. jalaaludiin kama rajo dhigin ninkan, waddo kasta oo uu mari karayeyna amaba aynu nidhaahna ee uu ku fahansiin karay wuu maray. inay jihaad ku jiraan buu u sheegay, ilaahayna inuu ka boqo ayuu xasuusiyey. laakiin sayfudiin wax dheg jalaq ah uma siin oo wuu iskaga baxay safkii ciidanka. kumay guulaysan muslimiintu inuu midhodhal u noqdo guusha qaaliga ah ee ay ka xaqiijiyeen dagaalkii qasne iyo kaabuul. halkaa markuu xaal marayay ayuu Genghis Khan ka soo fadhiistay meel u dhow ciidanka si uu u soo arko muslimka labada jeer jabiyay ciidankiisii. waxaa muslimiintii hadhaysay baqdin, tiradoodii ayaa yaraatay, waxaa burburtay niyadoodii. markii uu arkay Jalaaludiin in tirada ciidankiisu yaraatay muxuu sameeyey? wuxuu la baxay ciidankiisa wuxuuna u dhaqaaqay koonfur isagoo ka cararaya ciidanka Genghis Khan, amaba ugu yaraan dagaal dhex maray isaga iyo Genghis Khan. laakiin Genghis Khan aad ayuu u daneeyay la dagaalanka ninkan, wuxuuna u soo degdegay sidii uu u gaari lahaa Jalaaludiin ulana dagaalami lahaa. waxa uu bilaabay Jalaaludiin inuu sameeyo wixii hadda ka hor sameeyay carar buuna tafaaxayd. waxa uu bilaabay inuu ka cararo magaalo kale isagoo u soconaya dhinaca Pakistan. uu soo gaaray Pakistan ilaa uu xagga kale uga soo booday, wuxuuna soo gaaray webiga Sindhi kaasoo waqtiga kala qaybin jiray Pakistan iyo Hindiya. waxa uu ku fekeray Jalaaludiin inuu ka tallaabo webiga isagoo ciidankiisa wata, weliba iyadoo aanay wanaagsaneyn cilaaqa ka dhexeeya isaga iyo boqorka Hindiya. laakiin wuxuu ka doorbiday inuu galo Hindiya si aanu la dagaalamin ama u dilin Genghis Khan. waxay soo gaadheen Jalaaludiin iyo ciidankiisa webiga iyagoo haysan wax doomo ah. meel fog bay ka dalbadeen doomo. intii ay sugayeen doomaha ayuu Genghis Khanna soo gaadhay. hortooda waxaa soo cartamay Genghis Khan, dabadoodana waxaa ka madow webiga Sindhi. waana lama huraan inay mawd iska hor yimaadaan. waxaa dhacay dagaal aan eray lagu cabiro la garanayn oo goobjoogayaasha labada dhinacba yidhaahdeen wixii hor ciyaar bay ahaayeen. 3 maalmood oo xidhiidha buu socday, birtina la iska aslay, dhimashadii iyo meydadkii baa dhulka buuxiyey. dadkii halka ku dhintay waxaa ka mid ahaa Malik Khan, ninkii ay maalmo ka hor Sayfudiin qaniimada isku laayeen. waa ka halkaa ku dhintay isagoon adduunyo waxba kala tegin, iskaba daayay iyadaa dishay adduunyadii. maalintii afraad bay ciidamadii kala gurteen meydadkii. waxay bilaabeen inay labada dhinacba ay farsamooyinka dagaal wax ka bedelaan, dhaawacoodana daweystaan, diyaargarow cusubna sameeyaan dagaalka xiga ee soo socda. iyadoo laysu nasanayo ayaa waxaa soo gaadhay Jalaaludiin doomihii. waqti yarna kumuu fakerin inuu sii joogo ama uu dagaal dambe galo, wuxuuna isku diyaariyay carar. wuxuu ku booday Jalaaludiin doomihii isaga iyo ciidankiisii khaaska ahaa iyo intii kusoo dhadhoweyd. waxay ka tallaabeen webigii Sindhi una gudbeen Hindiya. waxay tataarkii uga tegeen magaalooyinkii iyo tuulooyinkii muslimiintii ku noolada iyagoon xitaa uga tegin ciidan ilaaliya. waxaad ogtahay inaanay tataarku kala saarin birmageedo iyo dagaalyahan iyo weliba Genghis Khan oo cadho baani hayso maadaama oo laga laayay ciidan fara badan maalmihii u dambeeyey. wuxuu Genghis Khan kusoo laabtay magaalooyinkii iyo tuulooyinkii si uu ugu cadho burburo, uguna sameeyo ciidankiisu wax allaaliyo wixii ay doonayeen inay ku sameeyaan iyo ka badanba. waxaa ugu darnayd magaalooyinkaas magaalada Qasna oo ay muslimiintu kaga guulaysteen maalmo ama bilo yar uun ka hor markii ay midaysnaayeen. waxay soo galeen magaaladii Qasna, raggeediina si aan loo kala aaba yeelin baa seefta loo mariyey, dumarkii iyo carruurtiina waa la adoonsaday. daaraheedii waa la gubay iyadoon hal daar laga tegin. waxayna ka baxeen magaaladii oo aanad moodin in xitaa shalay la deganaa. wuxuu sidoo kale Genghis Khan helay carruurtii Jalaaludiin, wuxuuna amray in dhammaantood la birbireeyo. Jalaaludiinna sidaasuu ku dareemay hooggii iyo xanuunkii ay shacabkiisu dareemayeen. sidaa darteed waxaa eygii u rumowday waa Genghis Khan riyo uusan islahayn si fudud bay kuugu rumoobaysaa, waana qabsashada Afghanistan. laakiin maxay Genghis Khan ugu noqotay riyo uu hiigsado qabsashada Afghanistan? maxay qabsashadii Afghanistan raad ugu yeelatay qalbiyada ummadda Islaamka? maxayse waajib u noqotay in laga digtoonaado dhicitaanka Afghanistan? qodobadan soo socda ayaynu kaga faalloon doonaa. qodobka u horeeya, Afghanistan waa dhul buuraley ah oo taagan, sidaa darteed waxaa u fudud cidda qabsatay inay 4 jiho dhankay doonto u duuli karto. waxaa kale oo dhulkan ku fiican yahay inaan hore looga gacan sarreyn cidda haysta dhulkan, maadaama oo uu leeyahay buuro waaweyn oo difaac u ah. Afghanistan haddii la qabsadana meel kasta oo diris la ahaydna way ku daysay. 2. Afghanistan waa dhul istiraatiiji ah oo leh ahmiyad gaar ah. haddaad Afghanistan qabsato waxaad fadhidaa Aasiya oo dhan bartankeeda. 3. waxaa lagu yaqaanaa dadka dega buuraleyda Afghanistan dad dagaalka ku ba'an oo necba adoonsiga.
oo wax iska celintuna ay ku tallaalan tahay. Markaa haddii aad qabsato dadka sida kuwa la deriskaa loo qabsana kaba sii fudud. 4 dadka dhulkan dega waa dad ku faana diinta islaamka. ruux jihaadka jecelna way iskaga jirtaa, ma aqbalaan gumaysiga, taasna waxaa caddaynaysa sida ay 2 jeer Tataarka uga guulaysteen, halka ciidamada kale ee islaamku ku fashilmeen inay guusha intaa leeg xaqiijiyaan. 5 dhammaan waxa aan hore ku soo xusnay marka laga yimaado dhicitaanka Afghanistan waxay raad xun ku noqonaysaa dhinaca muslimiinta, raad fiicanna dhinaca Tataarka. ummadda dhulka istiraatiijiga ah laga qabsaday waa xaqiiqi inay quusato. ummad quusatayna weligeed iskuma daydo inay istaagto wax iska celiso. sidaa darteed Tataarku waxay qabsadeen laga bilaabo Shiinaha, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia, waxayna ku soo dhawaadeen Ciraaq. waxaasoo dhan waxay gacan galeen sanad gudihii waana 617 hijriga. waxay baalasha taariikhda ku qoreen waxaan hore iyo dambeeto midna lagu qorin. qof kasta uu garanayaa dhacdadan, caalimkana cilmigiisa bari, jaahilkana waxa bari can ahaanshaheeda. waxaa soo galay sanadii 618 hijriga ku soo noqoshadii Tataarka ee Azerbaijan. waxay ku soo noqdeen Tataarku gobolka Azerbaijan ee muslimka ahaa. mar labaad waxay geli doonaan magaaladii Muraqa.